ururkan samafalka Mays Charity Organization oo ah urur ka shaqeeya horumarka iyo baahiyaha aasaasiga gaar ahaan gobolada Awdal ee Somaliland iyo gobolka Harawa ee dalka Itoobiya. haddaba saraakiil sare oo ka socday ururka samafalka Mays Charity Organization ayaa waxa si weyn loogu soo dhaweeyay gobolka Harawa gaar ahaan degmada Darwanaaje iyagoo halkaas ay ku soo dhaweeyeen madaxda degmada Darwanaaje salaadiin culimo ardayda iyagu wax ka barata dugsiyada kala duwan ee ku yaala degmadaasi iyo bulshada rayidka ah ee ku nool degmada Darwanaaje. saraakiishan ka socotay ururka samafalka ee Mays Charity Organization ayaa waxa ay kormeer ku soo mareen degmada Darwanaaje. ururka samafalka Mays Charity Organization ayaa waxa ay kormeerkayga ku soo gabagabeeyay dugsiga Darwanaaje halkaas oo ay ku sugnaayeen maamulka dugsigaasi iyo ardayda wax ka barata iyagoo halkaas ay ku wareejiyeen 125 jingadood 70 kiisho sibidh ah iyo 20,000 oo bir iyagoo loogu talagalay deeqdan in lagu dhameystiro 5 galaas oo qabya ah. ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Darwanaaje oo sheegay in ay soo dhaweyn doonaan ururka samafalka ee Mays Charity Organization. waxa kale oo yagna halkaas ka hadlay gudoomiyihii hore degmada Darwanaaje iyo salaadiin iyagoo hadaladooda ay ku soo biyo shubanayeen in ay dugsigan wixii ay karaankooga ah ay u qaban doonaan. waxaan hadda soo jeedinayaa in nabada ay fasal abaabulay ee wadankooda inay wax qabtaan iyagoo maarta xuquuqaal ka noqday in dugsiga sare iyo maarta waxyaabo badan oo dadka ay iska bedeleen marka ayaan ma ballaaran soo jeedinayaa iyagoo dadkooda ugu horeeyay ee macaawinad loo soo fidiyay ay yihiin markaas iyagoo sid mudan oo aan dadka nooga tilmaaman oo wadda kalena oo badan aan xasuusnayn oo waddanka ka tagayna ka shaqaysta ay jiraan laakiin iyagoo bilowga ugu horeeyay nololmada intaan doonay iyo walaalaha inay nagala soo qayb galaan ayuu maantay waata waxaan magacooda aan ugu abaalgudno aad u looyahay aad u looyay waddankaas fadhilo badan baa ka dhacay barbaaradiina magacooda waa la furiyay dalkiisi maanta oon aynu joogno Darwanaaje dugsigii barbaaratiga ama lamiyo turnaadka ee aynu ku dhisannay iskaa xoogeenna iyo xoolaheenna markii ay dareemeen walaalaheen jaaliyadda dibadda ee walaalaheen ah ee wadaniyiinta ah ee ayna xuseen inay ina taageeraan oo inagu taageeraan jiingad iyo simid iyo farsamo gacmeedba inay inagu taageeraan ay niyeysteen nasiib wanaag baan tirsanaynaa 100%. marka kale waxaan aad u salaamayaa kuwa handisay ee walaalaheen ah ee wadaniyiinta ah ee ay inta ay inay ina taageeraan niyeysteen waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaanta ugu qiimo badan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan maanta mahadnaq weyn uga soo jeedinaynaa dhalinyarada jaaliyadda deegaankan ka tegtay ee dib u xasuusatay inay Darwanaaje ama deegaankoodii ay ka tegeen wax soo taraan oo ay ka caawiyaan dugsiga sare iyo waxyaabihii kale ay awoodaanba. waxaan leenahay dhammaantiinba hambaliya baan idin leenahay. intaa kadib haddaan wax yar dib ugu noqdo taariikhdan halkan ka jirtay marley waxaa jirtay dhibaatooyin fara badan oo ay dadku tabarruc ugu dhisanayeen dugsigan sare iyo waxyaabaha kale ee ay ka mid yihiin sida dhakhtarka oo kale ay ka mid yihiin. ilaahay baa mahadle aqoontu garashada way ka fiican dee ma soo direen hadduuna wax aqoontu way ka ballaaran tahay garaadka. waxaan leeyahay iyagu way mahadsan yihiin oo way bilaabeen hawadan huwa hidiin soo digay annagana waadna sharafteen oo wixii adoon soo dhiibteen halkanaan ka caddaynaynaa. waxaana doonaynaa codsanaynaa bilowgaa fiican inaad ku dhistaan Darwanaaje iyo agagaarkii iyo intiina khusaysa. taasi waa fariin cabdinayo qoladii soo dirtay hantada ha yaraato xasuustaa qiimo leh. maanta waxa aan idiin sheeganay idiin wado waanu ku dhawaaqay laakiin waxaan leeyahay ha ka sii badato iyagu ha ka badiyaan idinkuna soo dhaweeya.
dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiqaadir Xuseen Khaliif oo ku hadlayay magaca ururka samafalka MS Charity Organization oo sheegay in waxyaabo ururka samafalka loo aasaasay inuu yahay inuu wax badan ka qaban doono baahiyaha ka jira gobolka Awdal ee Somaliland iyo gobolka Harawa ee Itoobiya isagoo hoosta ka xariiqay in deeqdan ay noqon tii u horeysay balse ay wixii karaankooga ay soo gaarsiin doonaan dugsigan isagoo uu mahadnaqay ragga ururka aasaasay oo ah qurbajoog ka soo jeeda gobolka Awdal ee Somaliland iyo gobolka Harawa ee dalka Itoobiya isagoo ururka MS Charity Organization uu gudoomiye ka yahay Axmed Sheekh Ibrahim Caateeye ururka maanta mataqaanaa intii soo damqaday ee dalkoodii iyo dhulkoodii jeclaaday inay wax ka qabtaan oo la yiraahdo MS Charity Organization ururkan oo mudada ururkan oo ka kooban dhalinyaro ku nool qurbaha oo ka mid ah dalal badan oo qurbaha ku yaala waxay mataqaanaa ka shaqeeyaan inay horumariyaan deegaanadoodii iyo dalalkii ay ka soo jeedeen sidaa daraadeed waxay maanta jeclaadeen inay dugsigii ay qaarkood wax soo barteen qaarkood baa xagga waxbarashada ka bilaabay qaarkood wax ku soo barteen inay ka dhisaan intii karaankooda tani waa tii ugu horreysay ma noqonayso tii ugu dambeysay waxay ballan qaadeen inay waxyaalo badan qaban doonaan waxay idin ballan qaadayaan inay xagga caafimaadka xagga beeraha xagga dariiqyada oo ah dee xukuntii noloshaba haddaan dariiq lahayn dadku ma noolaan karaan marka waxay ballan qaadayaan inay intaaba wax badan ka qabtaan inta karaankooda walow aanay ahayn dowlado oy laakiin yihiin shakhsiyaad laakiinse inaga jeebroon markay isku tagaan intaba iyaga soo ururiyey waxayse ballan qaadayaan inay inta kalena laga kaafin doonaan كل باهيو ويبديهين halkan iyo dadkeen way badeeyeen oo meel walba ku nool yihiin marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in mataqaanay inta kale ay noo soo qabtaan waxaan xagga soo uga mahadnaqaynaa dhammaantood sida quruxda badan leh ay isku xilqaameen iyadayna cid ku codsan sida maamulka iyo mataqaanay gudoomiyuhu soo sheegay waa wax lagu farxo runtii walaalkaayo soo danqado wax soo taray waa wax lagu farxo idinkana arday ahaan waxaa idinka rabaa inaad kaalinteedii yeelataan oo dadaashaan oo dadaal la timaadaan oo markay deegaanada kale iyo gobolada kale noqotaan aad noqotaan ugu cadcad ee waxbarashadooda heerka gaadho ee waxbarashadooda ka mid dhaliya hadhowna dalkooda iyo dadkooda wax u qabta tii ugu horeysay taasi oo nagu abuurtay dareen aad u sareeyay waxaan leeyahay walaalayaal dalkan cid kale uma maqna in ceelno ma qodna cid u maqan waa idinka dadkii wax u baranayayna waa annaga waxaan idin leeyahay oo si adag idinku diraya deegaanka wadii Harawa deegaan ballaaran waana deegaankan ku faano inaad maal gashataan oo aad dhistaan waxyaabaha u baahan yahay aad u soo dirtaan annagana aan muxuu ahaayay la nimano wax wada qabsigii ayaan idin diraya fariinta waana aad baan idin salaamaya maanta waxaan ku faraxsanahay aad iyo aad ugu faraxsanahay ururkeena MS Charity Organization wuxuu naga caawiyay dugsiga sare oo qabyo ah waana mid waligaan ku faraxsanaan doono waxaan filayaa in maxaayaday bilowgii caawimada ay tahay ayna socon doonto caawimadaas ayna ahayn mid istaagin waxaan ku faraxsanahay dadka wadankeena u dhashay MS Charity Organization and for thanking everything and every hours thank you for si kastaba ahaatee ururka samafalka MS Charity Organization ayaa ah deeqdii koowaad uu soo gaarsiiyay dugsiga Dharwanaaje Maxamed Xasan Ismaaciil Shirbiyaare shabakada wararka ee Sublaha News magaalada Boorama